Yeah. iyagu de hadda kama warwarayaan fiiri kama warwarayaan akhlaaqiyaadka iyo meesha ay joogaan waxay ka warwarayaan kamaradan intay socoto wixii ha qurux badnaadaan mugta hada way soo fiiri dadkan fiiri dadku qofku inuu isbartaa moogtahay dadku way soo ogyihiin inaanay akhlaaqdan soo sii socon doonin waxay leeyihiin inta yar wax noo socdo inta yar bal aan aamusno hadda TikTok baa galaysaa hadda qol Norwegian aan saaka ku jiray wallahi waxaan dareemay qalbiga deg waxay ka hadlaayeen xanuunada maskaxda iyo waxaas ka hadlaayeen iyo alayga kalinimada iyo maxaa la dhahaa wada hadalka maxaa la dhahaa wada hadalka oo kale communicationka mental health may ka hadlaayeen mental health ka hadlaha in dadka ku kala duwan yahay communicationka sidaad qof walba ula macaamilayso dadka inuu isku waxyaabo I feel ma sha Allah tabaaraka Allah geed biyo lagu shubay ma aragtay oo qalalay ayaamahan baan waxaan ku dhex jiray moogtahay islaamo Soomaali ah oo xulbad isku qoraya haddaad tiraahdo isha xanuunsan xulbad ya haddaad tiraahdo tinta ayaa dhinac iga soo buuratay xulbad kaliba ee la iga saaray xulbad oo xulbad waa daawi xulbad waa daawo aad culus anigu qol imka marka iyo qaar iscaynaya war fiiri wallahi waxaad arkaysaa bal dad subhanallah war bariga waxa sameyn jiray maxaa loo dhahay dadka carabkana ku naar mutaan war haddaan ogaaday bashow maalinba waxbaad baranaysaa moogta bal dad qof geesiya u arka qof waalanday qofba qofku ka cay badan yahay baa waxa loo yaqaanaa qofka ugu fiican TikTok absolutely marka waxa weeye waxa ma kala faa'iidaan hadda gashidna hadda imika qolada yarar baan iska helay alxamdulillah oo xitaa businessyada iyo waxaas laga sheekeynayo anigoo dee qalalayba ayaa la isi yara waraabiyey 2 cisho iminka geed qalalay anoo ahaa ma fahantay marka waxa weeye bulsho waxaan nahay maxamed siyaad barre markuu dhintay bulshadana dhimatay dawladdii markii la riday dadka xitaa way is dhegeysan jireen fiidiyoyadii hore fiiri sakiyo dad akhlaaq leh hadda gabayo oo waxaan fiirsaday hadraawi fadhiyo fiiri hadraawi fadhiyo oo gabar gabayeyso waa la is dhegeysanayay waa la is maqlayay cisi buu dad ku lahaa qofka yacni qiimay lahaayeen dadku naqoy waxaan kuu sheegayaa meesha Soomaaliya berigaas waxaa haystay nin la yiraahdo Kim Jong Un siyaad barre siyaad barre aniga waa mid wallahi aniga siyaad barre ma aragta marka aniga hadda ku kala duwanahay sakiyo aniga halka waa ku kala duwanahay markaan population iyo dadkan arkay Kim Jong Un baa loo qaatay dadkan nin aan isaga hayn ma hayn kari ilaahu jannadii fuge ilaahu ku dambi dhaaf war meeqa dhimatay gadaashiisniyo school free ah maxay dhakhtar free ah waxaan arigan buu madaxa kaga taagnaa fiiri dadkaanu ku taagnaa maanta aan 2 biyo wada cabi karta lahayn 2 biyo wada cabi karta ma leh laakiin waxaan malaynayaa dhaxalkan fiiri dictatori buu ahaa problemka jira waxa weeye dictatori buu ahaa mar kale aan ka wada hadlaynaa arrintan laakiin waxa weeye dictatori buu ahaa dadkan maskaxda lagama dhisin dad baqayay ahaayeen qofkuna markuu baqayo baqashadii ay ka baxdo of course wixii de foundationkii dhamaamuus lahayn moogti waxaa dhacaysa markaa qofka hadduuna baqaynin oona de adaab ahaan loo soo barin oo qofku baqayo waxay keenaysaa qofkaas inuu ku dhaqaaqo markay baqashadii uu waayo wuxuu doonu samaynaya marka afrikaan fiiri marka populationkan sidana ku dhacday ma ahe u malayn maayo siyaad barta wuxuu ahaa de walaal celebrity buu ahaa muxuu ahaa madaxweynuu ahaa qofka kaliya wadanka ugu cadcad buu ahaa de adigu waxa weeye hadda anigu dad fara badan oo taageerayana waa arkaa moogta ma anigu waan taageeraa
waan taageeraa aad baan u taageeraa aad baan wallahi u taageeraa aniguna ma taageero halkaa waa ku kala duwan insha Allah waxaan ku taageeraa aniga uu fiiriyey fiiri ummadda wuu fiiriyey waxbuu baray iskuulaa la furay free baa looga dhigay uu arkay dadkan in lagu istaaga mooyaane inay si kale ku istaagayn fiiri geedka hadduu tiin yahay haddaad tiraa tufax ay noqdaday tiin baa ilaahay u abuuray soo ma ogin aad iyo aad dadkan sidaas baa ilaahay u abuuray fiiri kuwa qurbaha ku dhashay say wallaahi da tiktok ugu mudan waad yaabaysaa 1 minute afka iskuma xiran karaan ma fahanti marka waxa weeye dadkan saas u ahaa marka waxa loo qaatay odaygaasaa loo qaatay odaygaana qalbiga u fur aan iska cafino waa oday wanaagsan buu ahaa aad iyo aad ilaaha u naxariisto laakiin anigu dictatorshipka waa aad baan u necbahay dictatoradu meelo fara badan bay kasoo jeedaan hadda wadan walbay kasoo jeedaanna wax fara badan bay baabi'iyeen moogta hadda haddaad aragto ciraaq oo kale haddaad aragto libiya oo kale haddii aad aragto ma garanaysaa syria oo kale wadamada islaamkana aad ugu badan yihiin moogta dictatorshipka soomaaliya hadda xitaa uganda fiiriya dagaalka ka dhacay dictator meeluu soo galo qalalaasuu sameeyaa because waxa weeye aniga waxaan aaminsanahay freedomkan aaminsanahay iyo qofka ma garanaysaa qof iyo cod inuu meesha ku imaan karo dimuqraadiyadan aan aaminsanaano dad fara badan oo dee soomaalidu fara badan waxay aaminsan yihiin kala taliye inuu imaado ama qof daaciya ya ka war haddaa idhaahdo aniga keliya aqalkayga haddaan idhaahdo keliya baa laga yeelaynin moogta gurigaygan aan deganahay haddaan idhaahdo aniga keliya wax garanaya haddaan idhaahdo ya baana carruurteedaan iga yeelaynin xaaskaygaan iga yeelaynin marka bal ka waran ummadan haddaan ku dhahdo qof keliya daaci ah baan ahay marka exactly maya oo warta mar walba way fool xun tahay dictatornimada iyo kaliya talinimada taasi waa wax bini'aadanka uu ka siman yahay in aanay qurux badnayn laakiin markaa dib u fiiriso haddana intii sidaa lagu xaman jiray maanta maxay hayaan ciraaq maxay haysaa libiya maxay haysaa yemen maxay haysaa war dictatoritygoodii maxay maba karee odayaashii hayay baa loo qaataa keliga taliyaha ahaa keligii taliyaha ahaa baa loo qaatay inuu madaxa kaga fadhiyo meesha hadda libiyan iska yara tegi lahayn qadaafi dahab yar buu soo siin lahaa dumarka uu jeclaa sadaam waan iska tegi lahayn oo maaragtay halkaasaanu dhihi lahayn anaa quraysh intaan 2 buurood dhexdooda gallo ma fahantay carab baan sheegana haddaan soomaali nahay marka siyaad barre maasha allah maanta heer baa la gaari lahaa maanta dee ma la hadleenba dadka wada jaamiciyaal buu wada ahaan lahaa insha allah aad iyo aad insha allah anigu I disagree with you halkaas intaasoo dhan soo tirisay North Korea u baahan tahay inaad u guurto halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa insha allah intaynu wada kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.